sagaal qof ayaa ku dhintay inta la xaqiijiyay kadib markii gaari yar oo nuuca caasiga ah uu ku dhacay gaari kale oo xamuul siday kaasoo ka yimid magaalo xebeedka Mombasa kuna sii jeeday magaalada Nairobi. sarkaal u hadlay booliiska ayaa sheegay in gaariga yar ay saarnaayeen dad qof xanuunsan u waday deegaanka Lego Sunga oo u dhow magaalada Mombasa xilligii uu shilka dhacayay. dadka ku dhintay shilka ayaa waxay kala ahaayeen nin xaaskiisa laba cunug oo ay dhaleen, ninka hooyadii darwalkii gaariga waday, ninkii xanuunsanaa marwo gaariga saarnayd iyo carruurteeda oo aan tiro ahaan la qiyaasin. booliiska ayaa sheegay in dhibaatada ugu badan ee shilalku ay sababaan gawaadhida xamuulka iyo kuwa yar oo si xawli ah wadada u maraa xilliga safarka. It is these human errors we are talking about that are causing all these accidents. A matter of carelessness without due care of the traffic rules and regulations we have in our Kenyan laws. gaariga xamuulka ahaa ee ku dhacay gaariga kale ee yar ayaa dadkii saarnaa oo tiro ahaan ay yaraayeen dhammaantoodba ay samata bixeen. Kenya waxay ka mid tahay dalalka ugu shilalka badan iyadoona wadada Mombasa iyo Nairobi isku xirta ay tahay mid khasaaraha ka dhashay shilalku ay aad u badan yihiin. dhanka kale wararka naga soo gaaraya xiriyaha qulutiga ee Dadaab ayaa waxay sheegayaan in kooxo hubaysan ay hal qof ku dileen wadada isku xirta magaalada Liboy iyo waliba Dadaab. dhimashada halka qof oo ahaa injineer ayaa timid kadib markii kooxo hubaysan oo wadada ku jiray ay xabado ku fureen gaariga ay lahayd shirkadda isgaarsiinta ugu weyn dalkan Kenya ee Safaricom. burcadda ayaa baarasho ku sameeyay gaarigii ay ku dileen qofka rayidka ahaa, dabadeedna waxay dab qabasiiyeen shidaal gaariga saarnaa sida la sheegay iyadoona intaasi kadib ay goobta ka baxsadeen. isla wadada isku xirta Liboy iyo waliba Dadaab ayaa kooxo hubaysan iyana waxay ku rasaaseeyeen gaari waday qaad, taasoo iyana ay ka dhalatay dhaawac laba qof oo rayid ah kuwaasoo lagu dabiibayo isbitaal ku yaala magaalada Liboy. maxamed cusmaan xabiib, Royal TV, Nairobi.